habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa ay meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada war waxaan idiin haynay youtube-keenan badiyo bari channel wararka caawa idin hayno aad bay u qiimo badan yihiin wararka caawa idin hayno Mareykanka badana isaga ugu horeeya wararkayga iyo Afrika iyo Yurub iyo Asia caawa wararku aad bay u culus yihiin ku soo dhawaada haddaan ugu horeeyo caawa wararka inkastoo aanan idin madaxdooda aba qodobada wararka isagoo duduuban baan caawa idin dhiibaya Canada USA Security Ra'iisul Wasaaraha Canada Mark Carney wuxuu toddobaadkan u baxay Munich Security Conference oo ka dhacaysa Jarmalka si looga wada hadlo arrimaha ammaanka adduunka oo ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah sidoo kale safiirka Mareykanka u fadhiya Israel Mike Huckabee ayaa shaaca ka qaaday in Turkigu aanu heli doonin diyaaradaha dagaalka ee F-35 waraysi uu siiyay telefishinka Israel ee Channel 12 ayuu ku sheegay in go'aankaasi sii jiri doono ilaa Turkigu sameeyo isbeddel asaasi ah oo ku saabsan nidaamyada hubka Ruushka gaar ahaan S-400 isagoo hadalkiisa sii wata Mike Huckabee ayaa intaas ku daray in sharciga Mareykanku si cad u mamnuucayo in F-35 la siiyo dal haysta nidaamyo ciidan oo Ruush ah xitaa haddii arrintu gaadho golaha senator sidoo kale maaliyadda suuqa Mareykanka guud ahaan ayaa hoos u dhacay balse Dow Jones ayaa mar kale gaadhay rikoor sare muddo 3 maalmood oo isku xigta isla Mareykanka saraakiil sare oo Iran ah ayaa Cumaan ku sugnaa ay laga yaabo inay la xidhiidho barnaamijka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Iran dhanka kale waxa ka socda dunida warar gilgili doona geeska Afrika waxa inoo falanqayn doona Cabdisalaam Brown wala yar daawada Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa u baxay halka iyo waliba sidoo kale dalka Mareykanka Benjamin Netanyahu safarkiisan ma uu ahayn mid hore loo sii shaaciyay balse waxa uu ahaa mid uu maanta oo 10ka bisha labaad 2026 ugu ambabaxay halka iyo waliba sidoo kale carriga Mareykanka Benjamin Netanyahu iyo waliba sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa warbixin ka soo baxday ay sheegaysaa in ay kulamo degdeg ah ay yeesheen amaba sidoo kale oo khadka telefoonka balse ay rabaan imanka inay kulamo ay u bedelaan foolka foola haddaba madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland laftarkiisa waxaa la filayaa in maalmaha soo socda isaguna uu ambabixi doono halka iyo waliba sidoo kale Mareykanka ma jiro wax wara oo rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland balse warkan ayaa noqonaya mid saxaafadda adduunka laftarkeedu ayaa hadal hayso kaasi oo ay leedahayba kulamada ay leeyihiin Netanyahu iyo waliba sidoo kale Trump waxa qayb ka ah wada hadallada Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale wararkii Yurub baynu galayna hadda Munich Security Conference ayaa dhici doona 13 bisha shanaad Febraayo iyadoo madaxda caalamku ku wada hadli doonaan ammaan siyaasadeed dibadda iyo caqabadaha waaweyn ee dunida warar caalami ah ayay sheegtay in xogaa isbeddel siyaasadeed ka socdo Japan xaalad adag oo ka jirta halkaas wararka ka imaanaya Afrika kalmooyin heshiisyo waaweyn oo dhinacyo ganacsi ah warshadaha ka socda South Africa iyo wadamo kale ee Afrika dhanka kale Kenya fatahaado daran oo dhoofinta xoolaha saameeyay dad aad u badan oo u baahan gargaar degdeg ah dhanka kale Ethiopia RSF warar kale oo Afrika ka imaanaya ayaa sheegaya in Ethiopia lala xidhiidhinayo tababaro ciidamo RSF ah Soomaaliya digniin iyo badbaadin diyaarad rakaab ah ayaa ku dhacday kadib markii ay ka duushay garoonka Muqdisho balse dhammaan rakaabka waa badbaadeen diyaarad kharaabay ahayd sida sheegayaan warar dhanka kale Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa saxiixday heshiis iskaashi military Soomaaliya waa wadankii 15aad ee ay la gashay heshiis military dhanka kale Soomaaliya iyo Djibouti waxay kala saxiixdeen iskaashi waxbarasho oo cilmi baaris ah Djibouti xagee ku haysaa nidaam waxbarasho tan iyo maalintii ay Soomaaliya burburtay xitaa 20 Soomaaliyeed oo wiilal Soomaaliyeed may qaadan oo wax may barin xagee waa Somaliland ku xumeen arrintu saan u arkayno dhanka kale dood siyaasadeed amni Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wasiir ka socda Germany ayaa ka wada hadlay xaaladda abaar
xabaareeda amniga iyo isbeddelka siyaasadeed. Dhanka kale, kulamo siyaasadeed hogaamiyayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa la filayaa inay ka qayb galaan wadahadlo qaran oo ka socda Muqdisho. Muqdisho waxaa ka socda war weyn, waxaa lagu kala meesha ka socda lagu lafaguraya howlo waaweyn. Runtii xaalku waa adag iyo halkaas. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna kursimaha madaxweynaha mudane Maxamed Cali Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayo qorshaha horumarineed master plan ee magaalada Berbera. Qorshaha waa mid casri ah oo loogu talagalay horumarinta beeraha muddada 2025 ilaa 2035. Munaasabadan waxaa ka qayb galay wasiiro, mas'uuliyiin dowladeed, maayar ku-xigeen Hargeysa iyo marti sharaf kale. Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu si weyn u bogaadiyey wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guryeynta, isagoo sheegay in qorshahani muhiim u yahay horumarinta magaalooyinka iyo dalka. Wuxuu carabka ku adkeeyey in master plan-ku yahay furaha horumarka magaalooyinka, isla markaana Berbera laga dhigo magaalo caalami ah oo la jaan qaadaysa dunida. Kaaliyihii hore wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsanaa Afrika, Ambassador Henry John, ayaa sheegay in Somaliland ay tahay dal leh muhiimad istiraatiiji oo weyn, isla markaana qani ku ah kheyraadka dabiiciga ah. Waxa uu xukuumadda Mareykanka ugu baaqay in ay fiiro gaar ah u yeelato Somaliland oo muddo 34 sano ahayd dowlad iskeed u taagan, xasilooni kuna naaloonaysay gobollada geeska Afrika oo colaado hadheeyeen. Sidoo kale, isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu xusay in Somaliland ku taalo meel istiraatiiji ah oo ku teedsan badda cas iyo gacanka cadmeed, taasoo u sahlaysa iskaashiga ballaaran oo dhinaca amniga iyo ganacsiga. Waxa uu intaas ku daray in dalkaasi hodan ku yahay dhagaxyo qaali ah, macdano warshadeed iyo ilo tamareed, taasoo ka dhigaysa fursad muhiim u ah furaha Mareykanka. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in aqoonsiga ay Israa'iil siisay Somaliland dabeeqadii sanadkii hore uu ahaa horumar la taaban karo, isla markaana uu rajaynayo in Washington ay qaadi doonto tallaabooyinka dhowaan aqoonsi si rasmi ah u aqoonsato Jamhuuriyadda Somaliland. Aqoonsiga Mareykanku siin doono wuxuu ku sii daray inuu wax badan ka tari doono Jamhuuriyadda Somaliland xagga amniga iyo xagga wada shaqaynta. Wadayaal, war waxaan caawidiin hayni waa nageynta tan iyo intaan dib u kulmayno habeennimo wanaagsan ee khayrtana daawanaysa meel kastoo ka jirtaan daafaha caalamka. Fiiska hoos fuu dhacay baalka kor u qaada, like tiyo share tiyo commentiga ku dhufta please. Waa idin salaamayaa, bye.